kulanka baarlamaanka ee maanta waa uu ka duwanaa fadhiyadii hore ee xildhibaanada baarlamaanku ay ku yeelan jireen xarunta golaha shacabka waayo tiro ahaan xildhibaanadu waa ay badnaayeen waxaana goobjoog ahayd 250 mudane oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka qaybtii hore ee kulanka xildhibaanadu waxa ay gudagaleen si ambaqaadida ka doodista mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoor Saacid iyadoo mooshinkaasi ay golaha u soo gudbiyeen 168 mudane oo baarlamaanka ka mid ah gabagabada dooda kadib waxa xildhibaanada baarlamaanku ay gudagaleen in cod gacantaaga ay ugu codeeyaan mooshinkaasi codeyntu waxa ay u dhaceysay mid safsafa iyadoo xildhibaanadu ay u kala codeynayeen ha maya iyo ka aamusid sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaarina 184 mudane oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa codka kalsoonida kala laabtay xukuumadda hadda jirta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. waxaa goobjoog ah 250 xildhibaan ayaa fadhida oo codeynayay waxa codeynay 249 guddoonka ma codeynayn marka tirada diiday mooshinka waxa weeyaan 65 xildhibaan inta ogolaatay waa 184 tirada la iska doonayay waxa ahayd 139 marka mooshinkii waa gudbay sida arkays wax ka aamusayna ma jiraan xildhibaanada iyagu soo diyaariyay mooshinkan xubnaha hormuudka ka ahaa qaarkood ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan mooshinka maanta iyo go'aanka ay baarlamaanku qaateen waatan gudoomiyaha guddiga arrimaha bani'aadanimada xuquuqul insaanka haweenka iyo carruurta ee baarlamaanka xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye oo talaabadan ku tilmaantay horumar loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda. dareenkayga maanta waa dareen aad rajada ummadda Soomaaliyeed iyo tan baarlamaanka Soomaaliyeedba kusii kordhinaysa iyadoo hor leh waayo baarlamaankan waxa ku jira xildhibaano waqti dheer soo maray cadaaladda dabiiciga ana waxa la dhahan hore u soo martay waxa jooga gudoonkii Carta ayaa fadhiya ra'iisul wasaarayaashii hore oo xilka ayagoo diyaarad si saaran laga qaaday jooga xogeeyaashii xilka iskaga casilay baarlamaankaas soo maray marka dad waaye arag ah oo ama aqoon u leh ayaa ku jira maanta marka dimuqraadiyadda inay si fiican u hirgelinta dastuurkana ay dadka Soomaaliyeed diyaar u yihiin ayaa muuqanaysa waayo baarlamaanka waa wakiilada shacabka waxaan u mahad celinaa xildhibaanadii mooshinka keenay waxaan u mahad celinaa xildhibaanadii kale ee ka soo horjeestay ee difaacayay waxaan u mahad celinaa gudoonkii baarlamaanka iyo xafiiska oo habsamo socodka howlaha baarlamaanka waliba maalmahan oo muddo oo aad u adag una kooban ahayd dulqaadka iyo kulli wixii la muujiyay ayaan u mahad celinayaa waxaan rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu waqtiga dheer ee dalkan xukuumad la'aan gaab si uusan u dhicin oo u lahaa inuu ra'iisul wasaare dalka u soo magacaabo si degdeg ah ra'iisul wasaarahaasna uu xukuumad u soo dhiso iyadoo barnaamijkeedana baarlamaanka la keeno ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda hadda jirtana muddadii ay joogeen wixii howle qabteen waan uga mahad celinaa natiijadana inay ku qanci doonaan filaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kulankii baarlamaanka ee maanta kadib waxa uu ku faahfaahiyay talaabada xigta ee hadda la doonayo in la qaado waxa ay tahay oo ah in madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha soo socda taasi oo ah mid ka mid ah awoodaha madaxweynaha oo dalka uu leeyahay isla markaana uu siinayo dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda waxa weeyaan dastuurka sida uu qabo qodobka 9aad xarafkiisa ee dastuurka iyo qodobka 103 awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa weeye inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare iyo haddii la ku reeyahay golo wasiiro cusub inuu soo magacaabo waxa kaloo xilka saaran kale waxa weeyaan golaha go'aanku gaari karaa laakiin kala diridda xukuumadda hadda jirta isaga laga doonayaa inuu xeer madaxweyne ku kala diro oo ku kala xukuumad kale soo magacaabo talaabada maanta ay qaadeen mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa wax ay awood u leeyihiin oo sharci ah waxaana awooddaasi siinaya qodobka 69aad ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda iyo qodobka 75aad ee xeeroosaadka golaha shacabka Cabdi Fataax Daahir Jeyte telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho.